kulan xiiso badan ayaa ka dhacay dalka Koonfur Afrika, gobolka Mpumalanga, magaalada Nelspruit, garoonka Mbombela Stadium. Kulankan oo u dhaxeeyay xulka qaranka Soomaaliya ee Ocean Star iyo dhigooda Eswatini oo gurigoodu yahay gobolka Mpumalanga ee dalka Koonfur Afrika. Nasiib darro, xulka qaranka Soomaaliya ee Ocean Star ayaa wareegii koobaad amaba aan yiraahdeen lugtii koobaad looga soo badiyay dalka Morocco. Lugtii labaad oo lagu ballansanaa dalka Koonfur Afrika ayaa waxay ku soo idlaatay 2-2 taasoo ka dhigan baraajo. jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika qaybaheeda kala duwan oo ka kala yimid meelo shisha iyo gobollo kala duwan ayaa garoonka soo tiro dhaafiyay kuwaasoo taageero u muujinayay xulka qaranka Soomaaliya ee Ocean Star. balse kulanka ayaa ugu dambeyntii ku soo idlaaday 2-2 taasoo ka dhigan baraajo. waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo taageerayaasha Soomaaliyeed ee meeshan isugu yimid. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taageerayaasha Soomaaliyeed oo meeshan isugu yimid. waxaan maanta diyaar u nahay guul iyo guul darraba in aan difaacno qarankeena iyo kooxdeennaba. marka sinaba kuma niyad jabayno wax kasta oo nalooga badiyo ama aan ku badino. diyaar baan u nahay waana taageeraynaa dhammaanna taageerayaasha ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaalida ee South Africa aad aan ugu mahad celinaya. waxaan ku noolnahay gobolka cayaarta ka dhacayso Mpumalanga waddanka South Africa. waxaan daawanaynaa cayaartii waxaan u jeednaa wax isbeddelay inaysan dhicin. geemka hore 3-0 nagula soo dhiftay kana hadda 2-0 maraya iyadoon gaarin cayaarta 60. marka waxaan u sheegaynaa maamulka iyo isboortiga cayaaraha Soomaaliya inay wax ka beddelaan. waxaan qurba joogta intay ciyaalkaas ku soo wadaan ay noo dhelsinayaan waddanka cayaartooy fiican baa joogta, gobolladu way buuxaan, la isku samigsareeyo doonani kan ka duwan lala imaado. aan ugu ceebaynana meesha daasoo anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada iyo sportska ee South Africa, Kamaal Saciid Maxamed. runtii hadalkii ama muhiimadii oo dhan baa gudoomiyihii Northwest Northern gudoomiye Shirwac aa dhammaystiray muhiimadii dhameed. runtii waa shucuurteenu baa inaan inta keenno oo aan muujino walaalaheen taageero oo aan tusno macnaha hili hoob inaan garab taaganaanay u soo dayici karno howlihii aan isleen macnaha maalinlaha ahayd in dartooda aan u soo xirnay si macnaha u garab istaagno haddii raayaan iyo haddii laga raayabo. marka maasha Allah wallahi runtii aad u faraxsanahay ka sports ahaan. arrintan waa kulli waa arrin aniga igu saabsan bas qosayso xalay maan seexanin. runtii waxaan yacni ku dareen ahay dhalinyarada qaranka nagu matalayso xagga ciyaaraha. waxaan kulli guul u rajaynaynaa dhammaanteen oo meeshaan wada u imaanay qarankeena inaan garab istaagno guulna u muujino insha Allah. hiili hooy wax walbana aan diyaar u nahay inaan macnaha aan agtooda taaganaanay dhankooda naga arkaan. Cabdirashiid Xuseen Karaash, warbaahinta Shabeelle TV, magaalada Nelspruit, gobolka Mpumalanga, garoonka kubadda cagta ee Mbombela Stadium. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.